siyaasi cabdikariin Axmed Mooge oo ah siyaasi madax bannaan horena u saaha wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu ka qayb galayo musharax u tartamaya golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa sidoo kalena haddii uu ku guuleysto jagadaasi xildhibaannimo u tartami doona maayirka caasimadda Hargeysa waxaynu si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa inaynu dadkeena u sheegno inaan isu sharaxi doono golaha deegaanka caasimadda Hargeysa doorashada soo socota waxa hubaala inaan halkan ka xaqiijiyo in doorashadaydu ama musharaxnimadaydu ay u taagan tahay midnimo aan doonayo inaan dadka reer Hargeysa dantooda ku mideeyo amaano aan rabo inaan ummadda u ilaaliyo amaanadeeda ay dhiibato karti iyo dadaal aan rabo inaan nafta ugu huro inaan Hargeysa horumarino higsi ka soo unkamay ilaa yaraantii oo ahaa maxay Hargeysadan ugu eg tahay maxay Hargeysa ugu ekaan weyday waxaan u soo joogay noloshayda oo dhan Hargeysaan soo joogay Hargeysaan ku koray ku dhaqday intaan noolaa waxaan maqlayaa cabashooyin fara badan oo ka imanaya dadka reer Hargeysa waxaan mid si fiican u fahamsan dadku waxay ka cabanayaan waxaan ahay mid u soo joogay oo indhihiisa ku arkay dhibaatooyinka jira waxaan mid ka fikiray sida dhibaatooyinka wax looga qaban karo waxaan isleeyahay waxaad sidii xalal waaritaan leh iyo higsigii Hargeysa lagu bedeli lahaa ee lagaga dhigi lahaa magaalo tartan la geli karta caasimadaha kale ee Geeska Afrika hore ayaan u sheegay Soomaaliya oo dhammi mustaqbalka waxay isugu iman doontaa magaalada horumarta ee bilicsan ee martida soo dhaweysa ee kuwa maal gashanaya soo dhaweysa waxaan jecelahay inaan ka mid noqdo dadka Hargeysa ka dhigaya in ummadda halkan la isugu keeno oo ay noqoto magaalo horumarsan bilicsan nidaamsan nadiifa cagaaran oo qof kasta oo reer Hargeysa uu ku faraxsanaado inuu ka soo jeedo magaaladan qiimaha leh ee taariikhda leh reer Hargeysa laba isku heli maayaan inay cawdaan iyo in maalinta doorashadu timaado ay qabiil ku codayaan kaygana waxaan Ilaahay u weydiinayaa inay midnimo iyo isjacayl iyo reer Hargeysanimadu ka weynaato qolada iyo qabiilka magaalada Hargeysa waa caasimad weeye waa caasimad ummadda Soomaaliland oo dhan ay wada leedahay dadkii hore u deganaana waa reer Hargeysa qofkii cusub ee gobolka la ka soo guuray ee dhistay ee degana waa reer Hargeysa midnimo marka kuwaana laga dhaxdhalinaya qofka reer Hargeysa macnaheedu ma aha qabiil ma aha oo qolo ma aha caasimadan qof kasto doono inuu dego oo maal gashado ayaa reer Hargeysa insha Allah taala khayr baan u rajeynayaa ummadayda wanaag baan u rajeynayaa ummadayda Soomaaliland dhammaan guul u rajeynayaa insha Allah taala waxaan Ilaahay ka baryaa in doorashada soo socota ay noqoto mid ka duwan doorashooyinkii hore mid aan qabiil ugu galin mid su'aalaad adag la isweydiiyo mid qof kasto ummadda hor yimaada la sharabo oo markaas imtixaan la geliyo dabeetana qofka ugu mudan uu soo baxo Xamsada Barre RTN TV Hargeysa